jirkaagi waxaan ahay laga jaray jixka midanaho waan ku jecelahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتنا أمد صوماليين ميل بعانك كجوان قارهان أصحابتنا كحيران جنرال كيك فرحي بران ويلكم تفرحي جنرال مانتا وحايدين فرحي مهيدين سيدا مانتا وحايدين سيدا فنانين دينا عانك إن هذا عبد الرحمن ونا وعصته إن هي سهدة دب دنب لا داون إن كبحدي قارهان فانكي اعتقادي جرتي هسها ما شاء الله waxaan leenahay guuriyo mabruuq عليك waa arin fiican oo soo dhaweynayno idinkan asxaabta ila soo dhaweey daawadayaasha qiimaha qaale hadaa ka hesheen subscribe share like gambaleelka ku taawo si aad noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawado insha Allah marka hore waxaan u duceynaynaa inuu ilaahay caafimaad khayr qabana siiyo inuu macna umada Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogto inuu ka najiyo cudurka xun ee wareegayo fayraska wareegayo inuu ilaahay naga shartiro inuu ilaahay naga badbaadiyo anaga iyo umada Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan gaar ahaan Soomaali weyn Soomaali miskiin iyo wax ma haysato ilaahay waxaan ka tuugeynaa inuu ilaahay cudurkaas ka barmariyo haday gaarina inuu sargaf macna sahal ugu dhigo ilaahay idinkiisa oo idinkaan ahayn umada nabi maxamed meel walba joogto calayhi salaatu salaam inuu caafimaad ku siiyo kiisku dhacan sargaf inuu ilaahay uga dhigo waxaan leenahay dadweynaha aan ku dhex noolnahay Yurubeeskana insha Allah iyagana waxaan jecelnahay inuu ilaahay ka dulqaado maadaama iyagana ay ku dhibtoodeen dad badan uu ku baxay ilaahay idinkiisa waa la isku dul nool yahay ma la kala maarmo Soomaali badan muslimiin badan korkooda saaran ilaahay waxaan ugu baryaynaa insha Allah biidmillaahi alkariim sahal bisahal jimcada soo socoto fadligeed inuu ilaahay macnaha ka yasiro ummadaas oo baabi'ayso cudurkan xun meelan dad leheen reer leheen ruun leheen Allah ku rido insha Allah welcome to farxiya jannah asxaabe waxaan jeclahay inaan halkan tacsiyi tiiraanya leh ugu diro asxaabteena Soomaali weyn walaalaheena qiimaha iyo qaayaha mudan ee ku geeriyooday cudurka fayruska ah ee dalka Sweden waxaan ilaahay ugu baryaynaa naxariis janno inuu ilaahay siiyo qofka marba haduu dhinto hadii la dhaqo iyo hadii la daahiriyo hadii kalaba waxa waa qofka naftiisa waa gooday gaaladan sida ay ka rabaan ay ugu sameynayaan ilaahay waxaan ugu tuugnaa inuu qabrigooda u nuuriyo inuu ilaahay macna qoomkii la soo dhaweeyo inuu ilaahay ka dhigo kitaabkooda midigtooda Allah ka siiyo biidmillaahi alkariim ana kan ilaahayna ma fidnayo biidmillaahi alkariim meel walba ummad Soomaaliyeed ee adduunka caalamka ay ka joogaan ilaahay ha naga yasiro muslimiinta dhan ilaahay ha ka yasiro gaaladan ilaahay ha ka barmariyo insha Allah culeesa saaran ilaahay culeeska Allah ka qaado gaalada aaday ugu wareereen arintan iyada insha Allah wadanka anaga aan ku noolnahay si daran buu ugu socdaa maanta shalay 8 ruuxa ku baxday daraad 46 insha Allah iyagan Allah ka dulqaado waa dhiban yihiin qurbada oo anaga iyaga saar anagana waan saameynaysaa ilaahay waxaan ugu tuugeynaa iyagan sahal bisahal gaalada ilaahay ugu qaad cudurkan meel reer la oo ruun la Allah ku rido badda iyo meelan la aqoon Allah geey fayruskan baas oo dadka waalay ducadaas kadib insha Allah asxaabi waxaan rabaa marka hore qoraal ay soo dhigtay fanaanadeena caanka magaceedii hodan cabdiraxmaan dheere oo naga codsatay in aan heesaha dib dambe aan qaadi doonin macnaha sida ida ay sheegtay hadda ka horna macnaha kanaalkayga uu ku jira channelkayga uu ku jira hadda ka hor iyadoo dhehayso macnaha fanka waa ka baxay haliga soo duceeyo inuu fanka ilaahay iga madoobeeyo insha Allah maxdu marka loo wacay la miiraayo tawroon gudiyadii la magacdabo hobey waxaan idin soo dhigi doonaa haduu ilaahay yiraahdo hadda kor hadalka ee dhahday ay tiri macnaha waan ka baxay fanka YouTube aan ka sameeyay channelkayga waa idin soo gelin doonaa hoos ka daawada insha Allah hoos idin soo dhiga haduu ilaahay awood sare ogolaado insha Allah maantana waxay tiri 2020 bisha Maars 24 laba maalmood ka soo wareegtay hodan Cabdullaahi waxay tiri waxaan jeclahay Facebookgeedan ka soo qaatay ma sha Allah waa jeclahay inay ka baxdo fanka ileen fanka wax lagu waaro ma aha wax fiican ma aha insha Allah laakiin inta ku jirtana Allah ka soo madoobay walaashan idana macna toobada ay ka keentay idana Allah ka aqbalo mid hirgal Allah ugu dhigo laakiin hadda korna way tiri markii labaadna waa kana insha Allah hadeertan waxaa idin kaga akhrinaa Facebookgeeda anoo jecel mar labaad inaan idin soo dhigo idan Facebooka hadda fahmi weyseen qoraalkeeda ina akhrinteeda ku fahantaa insha Allah waxay tiri
waxay tiri hodan assalaamu calaykum ay tiri walaalaha muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa anigoo ah walaashiina fanaanada ah hodan cabdiraxmaan dheere salaan kadib waxaan rabaa ay tiri maanta oo taariikhdu ay tahay 24 bish 3 maarso 2020 inaan idin xaqiijiyo in qalbi ahaan gebi ahaanba ay tiri gebi ahaanba fankii aan iskaga baxay ilaahayna igu toobad keenay fanka waxaan kusoo jiray muddo dheer gaaraysana dhowr iyo toban sano haddaba sidaan wada ognahay tiri fanku ma aha wax ilaahay uu macnaa uu fiicneeyey raali ka yahay sidaa darteed go-aankaygu waxaan ku gaaray inaan ka fadhiisto guud ahaan fanka insha allah haddaba iisoo ducey haddaba walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaad sii faafisaan ay tiri aad sheergaraysaan fariinteeda iyo ummadda soomaaliyeed si uu u gaaro sidoo kale waxay tiri inaad joojisaan macnaa amar anaga ayna farayso waxay tiri waxaan jeclaaday inaad iga joojisaan heesahayga aniga iyo qaaska aad dhegaysanaysaan fariintaas waa muhiim hodan hadday raalli keen in heesteeda la dhegaysanin annagana waxaan ku khasbanahay inaan heesteeda u dayno sida macnaa ilaahay qafuur raxiim kitaabkiisa qofku wuxuu dhibaa in laga dhowraa fiican insha allah marka walaasheen allah ka dhigo toobadaas iyo tawxiidka ee suubsatay toobadaas in ilaahay ka aqbalo tii ku camal falatan ilaahay uu ka dhigo waayo hodan mar hore waxay tiri waa toobad keenay oo fanaanimo ma rabi ay tiri hadda muddaa kasoo wareegatay youtube-kaas anaa ahay waan idin soo gelinaa saan hore idinkaga ballan qaadi shalay mee daraad 24 bisha maanta bish 26 waaye oo maarsi ah ee haddana dib ugu soo celiso waayo marka waxaa qosol leh ama isweydiin leh maalintii dhaweed waxay tiri waa ka baxi haddana booskeeday ka taagneed maanta sidoo kale haddana way soo qortay waxay tiri waa ka baxi heesaheen dib dambe yaa loo dhageysan marka aan kaftan mee hodane ma fayruuskii ka cabsatay toobadii tawxiidkii heesaa ay ka tooba keentay mise wax kalaa jira hodane mise ciyaalkii aa kugu batay korinadii maa kugu adkaatay maxaa lahaa kole cilmi yarni haasta iyo fanaanimo isma keenayaan maasha allah marka asxaabteeda qaaliga waxaan jeclahay in walaasheena sida inaga codsatay inaan u sameyno in heesaheeda loo daayo iyadana ilaahay uu ka aqbalo toobad keentay waanu kusoo dhaweyneynaa hodaney maasha allah tabaaraka allah ilaaha kusoo hideystay hees wax lagu faano ma aha hees macnaa wax mustaqbal ma aha hees macnaa biri qayaam waxa ku taraay ma laha dembiga le kugu sii badanayo munkir waaye hees qofka heesaya waa qof munkir ku dhex jiro waaye marka masii waaye ilaahaygi kaa soo dhex bixiye alxamdulilah laakiin mar walba inaad tiraahdid waa ka toobad keene ogaada inaad tiraahid oo haddana aad ku fashilintid oo haddana markii labaad waay haddana aan kaa haayon soo dhigayo maasha allah tabaarakallah aad ayaan kuu xiiseeyaa waxyaalaha qaar markaa kusoo gelinaysid marka waxaan jeclahay inaad ka dhaweysid saaxiibe inaad ka dhaweysid oo wixii hadalkaaga macnaa ha ahaado hadal qof mowqif leh noqo iska hadal looma hadlo waxaa soo qore waa inaad macnaa aad ku adkaysataa oo wixii aad tiraahdaa meeshaad aad ku xirtaa insha allah annagana waa kugu soo dhaweyneynaa welcome waan ku leenahay inaad iska dhaaftid hodane cabdiraxmaane waa maasan tahay ilaahay kusoo hanuuni kuwa kalan u ducee walaalaha soomaaliyeed fanaaniinta iyagana inay ka toobad keenaan 10 sano iyo hee wax dhow ma ahee alxamdulilah iyagana ilaahay inuu ka toobad keeno ilaahay ha u kaso u ducee walaalahaaga insha allah biidni illaahi alkariim haddii sheeka fayruus leh ee tahayne yaa xabiibti ood macnaa fayruska wareegaa le aad ka cabsatine taasna ilaahay ka magan gal waxaa waaye ilaaha wax dilo waxna nooleeyo qof muslimaad tahay iimaankaaga adkee marka waxaad yeeshaa maxaa lahaa fayruska waxyaabaha liin dhanaanta iyo maxay dhahaan iyo sanjabiilka iyo waxaas oo loo caawi iska cab adigana insha allah laakiin mowqifkaaga ha ahaado mowqifkii hore ood ku hadashay markii labaada hadashay markii saddexaadan ku sugeyna insha allah inta la gaaro waxaan jeclahay inaad stop gareysid waxaasoo dhan aad ka baxeed haddis ilaahay yiraahdo welcome tafarxiya channel asxaabteeda qiimaha qaayaha mudan macnaa wiiga idinkugu soo geliyaa baryaha naftirkeyga fayraskaasi adduunkaas nii jawaab nagu dhacay annaga dhanbo intii muslim ummad nabi maxamed ee allah ka yasir gaalada allah ka yasir dhulka aan ku noolnaha allah ka yasiro si xawli u socdaa geedkaas maalintii intaasoo ruuxu soo ridinoyaa ilaahan ka magangalna weyn waaxidka ilaahay anugu cafiye dhammaanteen allah isku keen cafiye insha allah marka waa kaas heesa subscribe-ta iyo sheerta dhinaciina waa welcome asxaabta qaaliga iyo qiimaha mudan
anigana sidoo kale insha allah. Bye bye.